waxaa farxad ah in aan halkan ku qaabilo hoolka shirarka ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo aan maanta ku qaabilo walaalkay Cabdikariin Qalbi Dhagax oo dalka muddo ka maqnaa sababta ugu maqnaana ay ahayd in hoolkan aad maanta u jeedaan lagu go'aamiyay in walaalkay halgamaa Qalbi Dhagax dalka laga musaafiriyo loona musaafiriyo dal kale oo shisheeye looguna dhiibo si gardarro ah runtii shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ku mahadsantihiin sida qiirada leh sida wadaninimada leh sida ehelnimada leh sida walaaltinimada leh aad uga gubateen oo aad uga dhiidhiseen runtii aniga markaan halkaan imid waxaan Ilaahay ka baryi jiray in uu maalin igu aadiyo igu simo in aan dhibkaas dhacay ee looga gardarana walaalkay halgamaa Cabdikariin Qalbi Dhagax si xaq darrada loogu dhiibo dal shisheeye aan xuquuqdiisii muwaadiniinimo dalnimo aan dib ugu soo celiyo waxaan ka codsanayaa inuu nacafiyo waa ka xumahay raggii dhibkaas geystay inay maanta joogaan xukuumaddii iga horeysay iyo madaxdii iga horeysaba ay wadanka joogaan welina aan laga haynin raaligelin laakiin anigoo ku hadlayo magaca xukuumadda hadda joogto waxaan leeyahay walaal soo dhawow waa ka raaligelinaynaa dalkaagii hooyo ayaad joogtaa tallaabooyin badan ayaan qaadnay golaha wasiirada oo lagu ansixinayay in damigii laga galay dib looga noqdo waxa iyadana kamid ahayd in jabhaddii xornimo dagaalanka ee ONLF Soomaali Galbeed aan iyadana dhahnay ma ahan terrorist ma ahan argagixiso oo aan ku cadeynay shacabka Soomaaliyeedna aan wagaas u cadeynaan haddana u cadeynaynaa in iyagana naga raali noqdaan maadaama iyagana maalintooda aan sugayno madaxda jabhadda ONLF in marka ay dalka yimaadaan madaxdooda sidaanoo kale munaasabad aan u samayn doono inkastoo waqtigu ugu gaaban yahay laakiin waxaan leeyahay hal is cafiyo soo dhawaada